Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nabadii ahaantiinba aad baan idin salaamayaa. Kuna soo dhawaada muuqaalkan. Muuqaalkan waxaan rabaa inaan kula wadaago qaabkii aad u isticmaali lahayd Kali Linux adigoo computer kale ama laptop kale soo qaadan soona iibsan. Qaabkan aan idinla wadaagayo wuxuu noqon doonaa qaab insha Allah aynu ku install gareyn doono Kali Linux-keena sida ugu fudud, ugu macquulsan, ugu wanaagsan dad computerkaaga dhexdiisa ugu isticmaali karto computerka. Markaan qaabkaasi leeyahay computerkaaga dhexdiisa sidee ugu dhex isticmaali kartaa computer kale waxaynu ka wadnaa haddii aad rabto inaad isticmaasho Kali Linux-ka waxaynu ogsoonahay inaad marka hore aad isticmaalayso Windows-kan ama Windows 10 ama adii inaad isticmaalayso Windows nooca doonaba ha noqdo. Haddii aad u baahan tahay security-ga ama aad tahay arday jecel oo baranaya security-ga waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho mid ka mid ah operating systems-ka lagu isticmaalo ama loo isticmaalo dhinaca security-ga. Haddaba operating system-ka kale si aad u isticmaasho waxaad u baahan tahay computer kale. Waxaana macquula kuley markaad arday tahay inaanay macquul ahayn inaad laba computer aad wada hesho. Sidaa awgeed waxaa la isticmaalaa wax loo yaqaano virtualization ama computerkaaga dhexdiisa ama computerkaaga Windows-ka inaad ku dhex isticmaali karto computer kale noocu doonaba ha noqdo ama Kali Linux ha noqdo ama Windows kaleba ha noqdo. Qaabkaasi waxaa kuu suura gelinaya virtualization-ka. Sida badan waxaa ugu caansan laba software mid ka mid ah waa kan idinka hor muuqda magaciisa waxaa loo yaqaanaa VMware. Wuxuu u baahan yahay kan isaad u isticmaasho dhammaan featureskiisa oo dhan inaad iibsato laysankiisa markaas ayaad isticmaali kartaa. Waxaa jira ku kale oo friya oo Oracle iska leedahay kaasi magaciisa waxaa loo yaqaanaa VirtualBox. Si aad usoo download gareyso waxaad gali website-kan deetana Windows haddaad isticmaalayso waa kan halkan linkigan ayaad ku dhufani. Haddaad Mac isticmaalaysana waxaad ku dhufani linkigan hoose. Anigu waxaan isticmaalayaa VirtualBox-ka. Si aad usoo download gareyso halkan ayaad ku dhufani. Already anigu waan soo download gareeyay waana kan hortiina ka muuqda VirtualBox-ki. Haddaba koley intiina ka bilaabaysa security-ga waxaan filayaa inaad su'aalo fara badan marar fara badan aad soo weydiiseen qaabkeen Kali Linux ugu shubnaa muuqaalka kan idinka ayuu gaar idin yahay. Markaad halkan ku dhufato website-ka toos aad u gasho waxaad ku dhufani halkan ay ku qoran tahay Windows haddaad sidoo kale aad Windows isticmaalayso. Windows markaad ku dhufato data software kuu download gareysmaya already anigu waan soo download gareeyay waana kan version-kan imika xilligan aan muuqaalka duubayo waa 7.08 saad ku arki doontaan insha Allah markaad soo download gareysaan halkaa ay ku qoran tahay VirtualBox version-kiisu waa 7.08 weeyaan kan imika rabo inaan ku shubo. Waayahay haddaba si aan ugu shubno sidii caadiga ahayd waxaad samayn doontaa run as administrator. waa kan setupkii uu soo kacay si fiican uu soo wada kicin waad iska yar sugi koley waxay ku xiran tahay qaabkan uu ugu shumayo computerkaaga iyo speedkiisa. deetana sidii caadiga ahayd waxaad ogaan next sidoo kale waxaad ku dhufan next yes waan rabaa yes baad ku dhufan deetana install baad oran. aad iyo aad ayuu fudud yahay. sidoo kale software-kani waa mid gebi ahaanba free ah weeyaan. waxaad u baahan tahay saad software-kan ama virtualization-ka aad u isticmaasho qodobka koowaad aad u baahan tahay kaliya waxaa weeyaan inaad haysato computer RAM-kiisu ama system-kiisu ka sareeyo memory-giisu ka sareeyo 4GB. sidoo kale waxaad u baahan tahay virtualization-ka si aad u isticmaasho computerkaagu inuu BIOS-ka dhinaca BIOS-ka enable u yahay. waxaad raadin doontaa meesha ay ku qoran tahay BIOS-kaaga virtualization technology deetana halkaas ayaad enable noqon. waa goorma markaad enable ka soo dhigayso waa haddii uu ku shaqayn waayo virtualization-ka ama software-adan haddii ku shaqayn waayaan ayaad enable ka soo dhigaysaa. haddii ay ku shaqeeyaan uma baahnid inaad enable ka soo dhigto. si aad ku garan doontaa inay ku shaqeeyaan inay kale inta badan marka uu soo kaco ayuu error soo dhigaa ama markaad iOS-ka ama ISO file caadi aad ku shubayso ayuu wuxuu tusi doonaa system-kaagu 32 kaliya inuu yahay ama aanu ahayn 64-bitkii inaanu ahayn. ciladahaas ayaa lagu arkaa. marka way fiican tahay cilada noocaas haddaad aragto xalka koowaad inaad ka daydo BIOS-kaagu inuu suuro gelinayo inaad isticmaasho virtualization-ka. kuley BIOS-ka ayaad gali doontaa deetana settingska ayaad gali virtualization meesha ku qoran tahay raadini deetana waxaad odhan hadday disabled ay tahay enable ayaad odhan. cilada inta badan aan ku arko computerada badanaa inay isticmaali kari waayaan virtualization-ka. waa kan software-keena wuu ku dhacayaa. waxaan tusi doonaa qaabka Kali Linux-ka loogu shubo computerka gaar ahaan software-kan
virtual boxka si aad uga badbaado ama aad isaga ilaaliso kole ciladaha yar ee uu leeyahay softwarekan. waxaan samayn doonaa intaanan ku shubin ka hor inaan idin tuso qaabka loo xaliyo gaar ahaan networka haddii aad systemka biirsanayso iyo wixii lamidka aba. aad arkayso setupkii uu kusoo dhacay. waa yahay sidoo kale waxaad u baahan tahay si aad u isticmaasho dhammaan featureskiisa oo dhan inaad soo download garayso extension pack ama halkan ay ku qoran tahay Oracle VMware Virtual Box Extension Pack. kan laftirkiisa waad u baahan tahay dhammaan si aad u isticmaasho all features uu leeyahay virtual boxku. sidoo kale kana waan soo download gareeyay waa kan halkan ii yaala. kan laftirkiisa waan soo download gareeyay waa kan kaasaan marka ugu horeysa aan ku shubay deetana Kali Linux-keena ayaan ku shubi doonaa. finish markaan idhaahdo setupka ayaa soo kici doonaa. waxaan sameynayaa extensionka intaanan ku shubin waxaan yar sugayaa waxoogaa intuu setupku soo kacayo. waayahay uu soo kacay. markii kii horeen isticmaalayay sanadin tusoo markii hore waan isticmaalayay Oracle Linux dhexda ayaan isticmaalayay. dhammaan VMware-da ama computerska virtualka ay samayso halkan ayay soo wada gali doonaan. waxaan ku shubayaa kii extensionka ayaan ku shubayaa. waxaan leeyahay double click kaliya ayaan ku sameynayaa. extension pack ayaan ku shubayaa. double click ayaan ku sameynayaa. arkayso waxoogaa computerkan ayaan ku sameynayaa. muuqaalkan ayaa iska yar culus laakiin dhib male. waa kan yes waxaad oran doontaa install. hoos usoo daadeg deetana waxaad tidhaahdaa agree. ooya halkaa ka arkaya halkaas ayuu kaga dhacaya extensionskii. ku dhacay. haddaba si aad Kali Linux-ka aad u isticmaasho waxaad u baahantahay Kali Linux-kii inaad soo download garayso. kolay laba qaab ayaa loogu shubaa. waa kan website-ka rasmiga ah ee Kali Linux laga soo download garay. dhammaan website-kaasi halkaa linkigiisu idinka muuqdo waa ka officialka ah ay iska leeyihiin ama ay leeyihiin Kali Linux-ku. Kali Linux-ka markaad website-ka toos aad u gasho halkan waxaad kasoo download garan kartaa dhammaan toolska Kali Linux ugu baahan yahay. hadday noqoto toolska gaarka ah hadday noqoto ISO filekii iyo dhammaan wixii lamidka ah. hoos markaad usoo daadeg waxoogaa in yarbaad hoos usoo daadegi. hoos markaad usoo daadegto installer imagekan mar kale ayaan ka hadli doonaa. waxaan u baahannahay in aynu soo download garayno maadaama in muuqaalkiina halka hore aynu kusoo sheegnay qaabkii aad si fudud aad ugu soo download garan lahayd ama aad u isticmaali lahayd ama computerkaaga aad ugu shubi lahayd Kali Linux. prebuilt virtual machines ayaa la isticmaalaa. kuwan ama prebuiltigan kaagama baahna inaad ISO filekii aad soo qaado adigu aad drive-kii aad siiso ood magacii siiso oo processkii dheeraa aad soo marto marka computer ama lagu shubayo Windows ama operating system marka lagu shubayo processkii dheeraa inaad soo marto kuwan uma baahna. already waa system diyaarsan. waxay u diyaarsan yihiin labada software ee caanka ah ama dhowrka software ee virtualizationka loo isticmaalo ee caanka ah sida kuwa halkan inooga muuqda. kani haddii aad VMware aad isticmaalayso uu 64 u yahay kan ayaad soo download garan. haddii aad virtual box aad isticmaalayso waa Kali Linux diyaarsan kan ayaad soo download garan. Hyper-V-gana sidoo kale lamid kana waa lamid. already anigu waan soo download gareeyay. waa kan virtual boxka waan soo download gareeyay. waa kan waxaan ku samayn doonaa extract ayaan ku samayn doonaa. waxaan leeyahay extract ayaan ku leeyahay. extract markaan ku sameeyo waa adigan arkaya filekii adiga filekii arkaya. yar baan muuqaalka yar qabtay maadaama extractingku uu aad u dheeraaday. isku soo noqod kale oo wanaagsan. filekii waa kan gabi ahaanba wax yar baa u dhiman. kuley waxay ku xiran tahay computerka aad isticmaalayso iyo
speedkiisa CPU noocaas isticmaalayso memorigiisa iyo wixii la midka waayahay filekii waa kan uu ku dhacay folderkan ayuu ku dhacay waay folderkan ayaa double click ku samayn yes waad sii gali filekaynu u baahannahay waxaad ku aqoonsanaysaa extensionkiisu waxa weeyaan .vbox saad filekaad u eegto labadan file ee inoo samaysmay extensionkiisu filekaynu u baahannahay aynu soo gelin doono virtual boxkeena waa kani ay ugu dambeyso .vbox ama extensionkiisu waa ka noocaas u yahay okay waa kani weeyaan waxaan ku samayn doonaa okay waa yahay waxaan ku samayn doonaa double click ayaan ku samayn doonaa qaab yar oo fudud ayaynu Kali Linuxkii processkii dheeraa filekii inaynu soo download garano ISO fileka ahaa iyo computerkeena aynu ka samayno computerkii virtual processka dheer aynu marno qaabkan yaree fudud ayaynu ku isticmaali karnaa Kali Linuxka in badanna qofku markuu ku cusub yahay Kali Linuxka waxaa lagula taliyaa inuu isticmaalo nooca yar wadiga arkaya systemkeena iminka automatically ayuu Kali Linuxkii usoo galay virtual boxkii wax yar baynu ka bedelaynaa dhinaca settingska kolay waxay ku xidhnaan doontaa computerka aad isticmaalayso haddaba laba computer oo khiyaaliya oo virtual ayaa igu jira imka systemka mid waa Oracle midna waa Kali Linuxkii weeyaan Kali Linuxka ayaa ku dhufanayaa settingskiisa ayaan halkan ku dhufanayaa halkan ay ku qoran tahay marka ugu horeysa Kali Linux markaad highlight garayso settingska aad ku dhufato wax yar ayaynu ka bedelaynaa CPU-ga memoriga iyo la xiriira networka systemka markaad timaado waa kan memoriga intaynu isticmaalayno waxaan ka dhiganayaa memorigiisa ilaa iyo 3GB meelahaas ayaan ka dhigayaa wax yar baan ku darayaa waay intii kolley computerkaagu qaadi karo ayuunbaa laga dhigaa ilaa meelahaas ayaan ku daynayaa processorkii waa kan haddaad rabto inaad bedesho yar kordhiso 2 3 4 kulli computerkaagii ku xiran tahay intaasi waa memoriga waxaan sidoo kale ka bedelaynaa dhinaca networka waxaa inta badan la isticmaalaa NAT network maaha NAT-kan imika uu ku taagan yahay NAT network ayaa la isticmaalaa NAT network haddaad ku dhufato wax NAT ah maynaa soo sameyn waa cilada ugu badan ee ardayga ama qofka marka ugu horeysa u isticmaalayo virtualizationka gaar ahaan virtual boxka soo wajahda weeyaan dhinacan ama networku haddaba si aad virtual boxka aad network aad u xaliso kaliya wax kale kaagama baahna iminkaas aad arkaysa halkaas NAT-ka markaynu doorano not selected ayuu ku leeyahay maxaa dhacay wax NAT ah maynaa soo sameyn virtual boxkuna ma sameeyo haddaba si aynu taasi aynu u sameyno kani waxaad inoo odhani keep editingka sidoo kalena waxaanu samayn karnaaba naadkiisiina iyo celi sorry bridge maaha naad deetna okay noo dheh halkan haddaad timaado file preferenceka aad timaado ama waxaan ka wadaa tooliska gaar ahaan network managerka haddaad timaado halkan wuxuu kaa tusayaa halkii aad ka controleysa weeyaan networka guud ahaan halkan naadka ayaad ku dhufan deetna waxaad oran create automatically kaa uu create geliya ayaan isticmaali doonaa magaciisuna waa NAT network haddaad u baahan tahay magaciisa iyo IP addresska iyo waxyaabahaas waad bedeli kartaa uma baahnin kaa systemka u isticmaalaya ayaan u baahanay kaaligii kusoo noqo settingskiisa tag settingskiisa markaad timaado waxaad timaada halka ay ku qorantahay network iminka waxaad doorataa haddaba NAT network kii iminka aynu sameynay ayuu automatically u soo qabsaday okay ayaan leenahay way dhan tahay halkaas ayay ku dhan tahay already halkaas ayay ku dhan tahay waxaa kaliya tanu sameynaynaa waa inaynu VMware-keenii aynu daarno waa inaynu computerkeenii khiyaaliga ahaa aynu daarno kulley soo bixistiisa iyo qaabka u soo kacayana sidoo kale waxay ku xiran tahay systemkeena iyo qaadkiisa si default ah storageka wuxuu ka isticmaalaa 80GB waanaad kordhisan kartaa kolley muuqaal kale ayaan ku tusi doonaa qaabka loo kordhiyo laakiin systemkeeni wuu soo kacayaa waayahay
waa kan systemkeedii weli wuu soo kacayaa. halkan ayaynu ka arkaynaa computerkeenii virtualkii ee Kali Linuxka aynu ku isticmaalaynay waa kan uu soo kacaya inagoo computer kale oo soo qaadan laptop kale aynaa soo qaadan kaliya ay isticmaalnay virtualization softwareadii mid kamid ah oo virtualbox loo yaqaano. waxaynu computerkeenii windowska aynu ku dhex isticmaalaynaa computer kale oo loo yaqaano Kali Linux. wuu soo kacayaa waan iska sugaynaa intuu soo kacayo. kan waxaad ku dhufan calaamadda yar closetaas ayaa ku dhufan. halkan aynu ka arkaynaa isaga ayaa soo wada kici doona. waan iska sugaynaa. waayahay waqti badan kadib computerkaygii Kaligii wuu soo kacay. waan inoo weyneynayaa. kana waxaan ka sameynayaa close sida defaultka systemkeena usernameka aynu ku galaynaa. usernameku ama userka magaciisu waa Kali. passwordkiisuna waxa weeyaan Kali. waxaad ku arki doontaa labadan magac markaad systemkaaga ugu horeeya ama Kaliga markaad ku dhufato virtualboxka waa kan usernameku waa Kali, passwordkuna waa Kali. intaas ayaan gelinayaa deetana login ayaan leeyahay. haddaad isweydiinayso waa maxay windowgan yar leekayn shaashadda ama virtual boxka shaashadiisa aan leekayn, waxaad degdegin wax yar sug isaga ayaa soo la kici doona. shaashadeenana si qurux badan inoogu ekaan doona. waxaan sugaynaa intuu soo kacayo. wakaas wax walba waa okay. systemkeeni wuu soo kacay si qurux badan ayuu soo kacay. Kaligeenina saad arkayso wuxuu leekaaday shaashadda ayuu leekaaday. haddii aad ISO filekaad isticmaali lahayd si aad displaygan quruxda badan leh ee dhammaan shaashadaada leeg aad u hesho wuxuu kaaga baahnaan lahaa waxa loo yaqaano gas addition tools ayuu kaaga baahan lahaa inaad ku shubto Kaligaaga ama virtualka. laakiin iminka maadaama prebuilt virtual machine aan isticmaalayno already systemku waa configure garaysan yahay, waa hagaagsan yahay, waa la soo diyaariyey. kagama baahna process dheer, kagama baahna inta yar keliya ayuu u baahan yahay. wadiga arkaya systemkeena si fiican ayuu soo baxay. waxaan yar ka eegi lahayn ama aan wax yar ka bildhaamin lahayn qaabka loo isticmaalayo waxyaabahan aad arkayso ee wejigaaga ama muuqaalka imika ka muuqdo. qaybtan sare saad halkaa ku arkayso waxay tilmaamayaan waxyaabo fara badan. halkaas waa codkii notificationska wixii aad hesho, internetkii oo ethernet virtualkii aynu isticmaalayno. haddaad u baahan tahay powertiina waa kan ama log out haddaad ku samaynayso halka yar ayaad ku dhufani log out, restart, shutdown wixii oo dhanba waa kuwaas. dad userkan maa ina user kalaad galayso switch userkaas ayaad ku dhufani. waay haddaad u baahan tahay inaad gasho terminalkii oo kale halkaa waad ka soo kicini mid root terminalkii emulator ah. sidoo kale waxaad samayn kartaa desktopkaaga right click haddaad tiraahdo terminalkii waa kan halkaas ayaad ku dhufani. deetana isaga ayaa soo bixi. marka ugu horeysan systemka aynu ku shubayno ama marka ugu horeysan isticmaalayno Kali Linuxku xoogaa yar culays buu noqdaa, laakiin intaa waxay ka dambeysaa caadi ayuu noqonayaa. halka saad ka arkayso wuxuu kaa tusayaa CPU-ga intaad ka isticmaalayso. marka ay imaamkaasi aad u dheeraadaan xoogaa waxa weeyaan CPU-gu waa yar PC, hadday hoos soo dhacaana waxba CPU-ga PC maaha ayay tilmaamaysaa. okay kan waa Firefoxkii. haddaad u baahan tahay home directory-gii inaad tagto waa kuwan. sidoo kale haddaad u baahan tahay toolskii kala duwanaa ee Kali Linuxka idna waa kuwa. waxaad ku dhufan halka calaamadda Kaliga ay ka muuqato deetana hoos ayaad usoo daadegi dhammaan toolskii waa kuwa. waxaynu u baahannahay inaynu tijaabino khadkii inuu oran inoo yahay oo u shaqaynayo. si aynu taasi u eegno waxaynu yar eegi doonaa khadkii inaynu isticmaalayno inagoo isticmaalayno commandka loo yaqaano bin. commandskaasi
muuqaalo ku saabsan ayaynu kaga hadalnay oo ku jira channelkeeni ama channelkeena ku jira. haddii aad u baahan tahay pin iyo dhammaan tooliska loo isticmaalo network channelkeena tag meesha ay ku qoran tahay windows waxaad arki doontaa commands fara badan oo muhiim tahay inaad barato ka hor inta aanad security-ga aanad u boodin. intan marka idhaahdo saad arkayso waxaan helayaa reply macnaheedu waxa weeyaan internetkiina waa shaqaynayaa. waayahay si aad u damiso waxaa sidoo kale aad isticmaali kartaa command ayaad isticmaali kartaa loo yaqaano magaciisa power off. sidoo kale haddaad u baahan tahay commandada basiga ah ee linuxka muuqaalo ayaynu ka sameynay kuna jira channelkeena tag oo booqo channelkeena gudaha horeysiga meesha linux ama playlistiga ay ku qoran tahay linux administration. sidoo kale waxaan soo dhigi doonaa linkiyadooda dhammaan fiidiyoyadaasi ama casharadaasi kala duwan qaybta descriptionka. aad baan idin salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. saan u damiyo sidoo kale waxaan leeyahay enter systemkaygu automatically ayuu isku damiinaya. assalaamu calaykum.